durba markaan xogta helay go'aan baan gaaray go'aan baan gaaray mana qabo inaad ugu diidaysaa صح haddii ilaahay idin hayo cabdishukri culayskiisa ugu weyn ee hadda gadaal lagaga soo riixayo xoolaha hooyey waa layga ilaaliyay aynu leenahay cabdinaasir baa lagu wareejiibu taagay aniga haddaad i dhashay sababtaad wax iga ilaalisay ma garana maadaama arrinta halkaa marayso صح cabdishukri isaga ayaan ku wareejinayna mas-uuliyadda xoolaha عمرك هور معانا أوه شاطر في عندي في عام هي دعاء سنة هذا الدعاء أفتى دعاء أنا والله ودعاء سنة هور معانا هو هذا يقول عيسى أنا إنه ما هاي هذا ورنا. ما يلوات هو هذا لو واضح أي gabadh yareed shalay markay soo wacday waxaan walla wax baa jiro waxay ku soo wacaysa gabadha waxaa jiro قولي عبد شكري haa أي waxay tiri adeer waxay tiri guriga dhib baa ka taagan ما هني دبيالا كتاجن دبيالا دبليا دبيالا كتاجن ناقص إلهي أنا maxaa la soo kulantay shalay gurigaas waxa ka dhacay waxa ka jiro ilaahay gurigaan ma keeno gurigaan waa guriga ku nasano ku qabowna haye gurigaan ilaahay gurigaas kama dhiga hawr naagtaas wiilkaas walaalka maxaa ka yeelnaa wiilkaas waa waasi waa la rabaa qoftaas ma aragtaa waayo dhibka dhan dhibka dhan waa iyada hadda see loo qabtaa naagtaas anagoo dhan managa awood badan tahay naagtiisa iyo reerkeeda waa labadaas baa intaasoo dhex jira aa weerar ku hayaan waa dhibka dhan waa dad kuwaas wiilka anagana ma arki karo ma maqli karo soo shalay iila hadlayaa shalay ani aftigaasoo guriga ma tegin ma ogahaa soo iila hadlaa ku dhahay cad a qofka idin kuu galay isma dhehaysid bismillah war habirtaas salaam wax ku salaamay in quraan saar u gacma cunuga ka soo horeeyaan in quraan saartin u baahangaas quraan maana cilaaj weyn oo qoftan laga saara quraan qoftan ayaa laga saara quraan qoftaan markii oo ka ee kala dhamaanaan la samaan wax loo tali karo naagtaan asoo qabo looma tali karo ninkan hadda hareer maxaa sugnaa ujeedaa xaalad say u qasan tahay wax kale uma soo indhacdaana garanayo maalka waaye waxa loo soo indhacadiyaa mifaasanta waa ogahay maalkii asagii barta inay isku qaadato asagina caag ka dhigto maxaa cabdinaasir hawr maxaa yeelnaa maxaa sameynaa oo tale wiilkaas in loo taliyuu rabaa wiilkaas waalay kuma haysto wiilkaas bilaa soo socdo soo ma dheen horta naa kalan ku dar raba naagta kale waa diyaar yaa iga yeelaa naagteeda ma qashin markaas oo igu dhah gabar yaraa u hayaa gabadhi hebel baariyad kaa qabtidoo kale baariyad tan lafta dhunta gashay maxaa lagu subinaa ayadan tan hadda waxaa ku samaynaynaa waa inaan u talinaa wiilkaa markaa qur-aan saarno oo miirkiisa soo noqdo miirkiisa ma joogo qofka markuu miirkiisa soo noqdo aa loo talin karaa soo maahan waa inaan cilaaj geynaa oo qur-aan saarnaa cunugii asagoo qaboobay qur-aanka qalbigu qaboojiyaa oo naxariista kusoo degto inaan waarid u nahay u ogaado markaas wuxuu leeyahay hooyada inay dhashay walaashay maba ogiba dhaafti taas kuma soo gaarin ma soo gaarin maxaa abtigii wuxuu ku dhahay inay dhashay walaashaa maba ogiba shakiyaaba iiga jira iyo caddeeya inay dhashaba ma hooyade hooyada inay dhashay maba ogiba yaaba horta dhalma manoo aaminsan yaaba horta sheekadan hadda way weynaa sheekadan way weynaata hooyadiis yurububa inkaraba ima dhalin u dhahay meesha dhiigu see camal he inay soo korto sanadkan waa la iskursaa yaa sanadkan yaa ilmo islaamid korina ilaahay nooma dhiibe oo hooyada imaan dhalina waa leeyahay maalna waa rabaa see wuxuu wadaa marka fahansi abar wiilkaas waa duran yahay bismillahi raxmaan raxiim war ineen talo gabadha ma kulanto mis aragtan adi gabadhi ismaan arag shalay ilaahayna imatuusan arageedana ma rababa naagtas arageeda ma rabaa naagtas aw abti markaad abti shalay ay ugu dambeysay marka gurigaas aniga soo joogaaba kasoo tagay aniga waa mashquulsanaa oo shaqaan ku jira waxaan ku dhahay niyahow aniga waa mashquulsanahay adi aadaan ku dhahay shalay aniga waa mashquulsanaa shaqa meel baa ku jiray ma soo bixi karin aniga wuxuu idhahay asagana warkan uu keenay warkan anaa reerkan xalinaa reerka way isdagaalsiin way isku dhacsan yihiin asaga oo soo tagtay asagoo jooga iska soo tagaan asaga dawarkii inuu siiyo wuxuu ku xaliyay in kale ma ogni magtuxi guriga lagu xayilay waa ogaanaynaa aw hooyo horta hooyo waa imaanaysaa dhimada wax balaydii xaggee ku sugan tahay waa la hadlaba hadda maxaa subina sameyno kale أنا وحاب يقول درب مال كان يوحنا لنا شيء وحاب يقول درب هويده من رأي تصاب يقول درب أنا وحاب ما طلع لنا الله شيء كذا شكادم بيس مال كله أرداي يوروب يا ما بدأ لين بماشي اللي يقول الله يبي أولك عاصب ونقطة عاصب اللي يقانو ما بدي آمن سني بقف مسكح دي مانكي سيال بدلوا الرجل ونكت ها مانكي على الرجل وحلا كم دلين عدا محكوك لما لا أنت ذلك هذا وير ماشي كها يا عنو كتير تانا إني نقطها وبرتاك عفسنا ناك تاني عنو توا باريات هرتا أبتلو مرة أبتلو سوا مت مركو إيمانا أصلا واسوقنا واه وده تشينا ما أنت أبتلو كلا شلي إنه ورك إيه كنا هذا
asagii intuu jiraa muu soo wicin hataa aniga beri wuxuu yidhi guriga cabdinaasir aa iskugu imaanayna guriga cabdinaasir aa iskugu imaanaynaa meeshaasaa ku wada hadlaynaa aniga iyo saas ani maanta u imaan gurigaa kuma wada hadli kartin guriga guri la cunaayo kaas ilaahay yani kaas ani argeed ma barabaa waraasale duqdii hooyadeed ahayd baa horta hore dhibka dhan waa duqda hooyadeed iyo reerkaas suuqoo dhan ma aragtaa dhibka dhan meeshaas ku imaanaya anagana loo diidaya gurigaas reerkii kalena way ku jireen waa degan yihiin reerkaas dhan waxa u aqli badan midda yarta adeerka u ah soo reerka waxa lagu korbiilo oo reerka dhibka waxa wada reerkeeda hantida soo wareeji hooyadeeda badhees mugta naagta ninka reerka kala soo wareeg hantida wallahi gabadha yarta ayaga ma raacin marra gabadha anaga raaca gabadhaas gabadha aabeed saas u ahaan jiray cunuga maankiyaa laga rogay waa inaan soo celinaa gabadha hataa noo soo qaada inta noo keena ay qoftaas hala furo anaa kuleeyahay waa la furaa furuq hadilee waana dhigtee ilaahay hakadeeda wayna kadeeda naagtaas ooyo lafaaya istaafurlaan dabarkaan ma aqaan lafahan karo matiisina gora ka dawoohayo ooy macaan see tahay aniga sudahdeedaaba kaa adag adiga allah hooye dagaal dhawna kaway kaasina ma aniga dagaalaysa waa arkaa ku sheego dibada oo macaan inkaar bay qabtaa hay kala tuurnaa bro fiiris ay wacda hooyo wixii aad samay tirwaasiyay oo maxaa ninkii ifur baada ifur community aad ku dhigay ma horta lacagtii meeyda xaas maxaa lacag aad ninkii iska furmay dhihino balaay ku furtay oo meel daran deg iyo reer xilkood ana dib waxa beega u soo qaatinaya isla lacagtii wixii keenay ba ku qaado lacag adi ma dhihino ninka hadda fur lacagtu soo qaada wuxuu lacag soo qaado ma dhan mu waartay wax kale laga soo inkaaro baas adi ma kasta wax idhe hadda waxay tir ninkii iska fur ma ninka iska fur waxaan ku baar xaftay baan ku yiri maane ninka iska fur maxay tahay lacag bay keenaysaa aniga shala lacag raadi tir lacagti waa ku raadi lacagti ma arkosa aniga furo dalba tir hadda waa dalba maalin waxa qabay tirada qabta dhigayso ana hadii hadda lagu furo waxa macnada gooni ay soo siyaadinayso waa maxay anigu maxaa la yiraahdaa waxay aniga meelkaaga bas ay keenaysaa meelkaaga nus dukaan iyo ma gooyo ani maxarta dhagaysi toqiya hadda kaawada iga baxay qaysanine balaay ku dhibsada ay duqaysan aniga naaya aniga ma adana la yeeriya meelana inaysa aniga gurkeyga wuxuu burbura adiga dartaa waaya hooyo dhigayso ku faafin balaa ku salaglay dhigayso ku soo cunugay ayaan tan waa kibirtay waxa kibir male adiga weerarkii way waashay marna ninka furniga hadalkaas ka faahlo اسمقلنا هذا الكمربو دوات عاصي والدين ويا عاصي والدين واقع هو انا اقدش عاصي والدين لماذا ما انا اقدش نعاسي ما دغيسو بلاش شتي waxa aad shirka aabaha waasana hay aabaha ma ahin ada hooyada caajirta iyo sadohda guriga ku dhaxaajirta waxa aad ka bartay waa maad الله ilaahay ana hadda ninka waxa lacag ka arkoy male laakiin ani go'aan qaatay dhageyso هاي هاو خير هذا نسوي هاي ديكاي dhageyso أيه aniga waxa la hadlay cidi shalay way maadeen abtiyaash markay maadeen waxay dhaheen maxaa lahaa abtigu bariyaha iska furin ninkoo saan waa waxa arta ku sameeyna waxa arta ma ii sameeynaa ku dhahaa ani waxa u baahana 1200 oo garaam dahab halkaas aan ii soo dhigo habarta iyo waxa abirahan iyo waxaan haliga fogeeyaa ku dhahay warkooda yaa maqal habarta saan cidi guriga marta ma iimaana qaadan noqo fahmi hadii dahabkaas liikan waa tajirina hadii kala ma tahay dhageyso labaatan kad garaan dahabka ku siina dhageyso ani waxaan ku sheegayaa hooy hal riix ma qoriyo riix ana meel ka tugsanayo hal riix miriya taa igu dhamayso hadii lagu furnaa ani maxaa ii soo siyaadanayaa adiga maalin fur maaliya hadda ani ninka fur baan ku kuleed inta qabsatay ninka fur daa oo la qabtan oo ninka xaal daa gudmahane furiga qabta aniga sanaya waxa taala hore maxaa ii soo siyaadinaysaa dhageyso ma maclina ii soo siyaadinaysaa aniga dhageyso raashinka ani ma qaadi karo dhageyso aniga waxa run inaan ka dhigo inay way ka inuu ekaato ma inay run noqoto araba hadda already fiiri waxa la igu dhahay waxa sida ku sameeynayna hadii waxa raba aniga la ii sameey hantida waa ilaa 120 gram oo dahab aniga 120 gram oo dahab inta ka keenay dhageyso hadda marka aadi wiilku xuka dhashay wareersi labadiina baxaratay guriga bixisi martaba nolosheed waa dhalaanki hoys dhalmada program ma gashay oo meel dalba ka kaaran reerum isku waxaan ku sheegay furiga ma aqaan aniga duceey waxaan ku sheegay guriga amniga ku heesay hawli ma ninkan guriga dhaqo aniga inta jirnaa ee u sheeg aniga ma rabo in aniga yaani meel la fadhiisto aniga meelkaaga u ciidraay malaanaya guriga hadda ku jirto bal yaa iskale abada xataa qeybqaadaysa ina naftirkeeda hooyaday abaal kasta oo gasho duwasaan waxa guriga sii lacagta oo ninkayga ka arunay guriga ugu galay maxaa wax daba uma qabanayna dhaaf xanaaqa madaxa ila kala jabanya wallahi billah
بس عادي ريرك ما مسح كذا reerkan hadda reerkan waa rugme mareera meesha yaalo reer gadoomi rabo waaye adduunyaa gadoomaysaa maqli jira reer gadooma ayaa imaaday ما يقول حنا حسب ما عادي adigana wax walba dhib male saa u dhihaysid adduunka intaad kusoo gubta dhib male ku haay dhib male le wax walba saa u fulmaysanaysa wiilkaaga faraha ka baxay waxaa leedahay wax walba dhib ma lahan wiilkayga faraha ma bixinay faraha uu ka baxay wiilkaaga wallahi wiilkaaga faraha uu ka baxay waxaas gadaal baa isaga dambeeyay jileeca kaaga yaababa iyadana waa soo xalinayna shid malaha hadana waxaan sugaynaa in walaala imaanaya dadka tasharina markaan tashana kadib insha Allah ma Cabdi Naasir ma aniga wiilkii walkana soo Cabdi Naasir ma ahayn ay maanaay Cabdi Naasir waxaan Cabdi Naasir waa nabadoon Cabdi Naasir meesha uu galo waxaa gala warkii jirana meesha uu ogaana waa sheegay jamaa mooday waqti ya jamaa ina leedahay mooday maya Cabdi Naasir baariya maya soogal السلام عليكم. وعليكم السلام بو سيتي سيتا روحي له الحمد لله كيف كورو وفي عنا سيتا بو يورو ما شاء الله ايه الحمد لله روحو وفي عنا علم سيء عيدا ما جيراني بريها وان كلا مشغولay oo di adduunkii intaas oo cajil baa soo rugmaday oo maaragtay bariga galbeed baa isku guuray oo heerka ko dhan baa geesay yeeshay oo mayna kala warhiin rooro hawla saraan ku mashquul guri meesha ana geesay yeeshay geeso geeso hadaa maqli jirto waxa yeeshay ku biciid kaam soo ku yaari geeso waxay yeeshay ma qana geesay fargeetooyin waxay la soo bixeen naag meesha ana geeso nagu loo soo wada mudeys anaga dham maxaa jira bal ii waran buuq badan baa isoo gaaray buuq waa dhaafay waxaa gabadha nikuda baraay gabarso gabadheeni 24 saac ku heesay dib ma lahan iyo okay gabadha wala shan waa si aqalnimo wax xalisan ma jiro wiilkayga qaba waa gabadhaadi waa run ilma inoo haysaa waa xaqiiqo hay marka waxaa iska baqbaqtaa iska boodboodo laakiin runta imaan baasha waramo dib xagee ka socda wallahi meel wax gabadha ku egba mise gabadha horta waa xeeldoon gabadha rumor bay wadataa gabadha waa xeeldoon iyadana ma ahayd dabada loogu jiraa hay marka hadduu ilaahay ku roon yahay wiilkiina motoor kale saartay oo adiga ma dhalin iyo film iyo waxba bilaabay ma adigu ku kuma iman iyada kusoo shubtay hay marka dee inaan hadda bal xaalkeeda muxuu ku ima dhalin ima dhalin hay wiilkaygii xitaa marka wax la sheegayo oo xitaa islaan ay rabto anaga waxa weyn waa nala jooga waa noo joogaa wiilkay gabadha waa gabadheeda adduunyo ku dhameysay ma waa runtii wiilka dhashay gabadha ma dhalin qofka hooyanimo markuu adigu ku ixtiraamsan yahay ixtiraam ma baa sama adigu weliga waxaa la rabaa waalidnimada inaad ilaaliso waalidnimadu waa shay muhiim ah cunugana inuu waalidnimada aqoonsadaa la rabaa ma laha wixii dib xoog laguma qasbo adduunka waxaa la yidhi ilkana say ku nabad galaan waa mahmaha asal ka soo gaadho oday ka soo gaadho ab ka soo gaadho isal ka soo gaadho marka sidiisaba waxaa jira aan idiin warrame saddex marka hore yaryar marka dambana ballaadha waa saddex marka hore yaryar ah marka hore way ballaadha tala yar baa jirto ballaadhata waa sheeko laba qof joogto gabadh iyo nin sheekaysanay sheekadood taladu iyaga joogta ayaa raba in isbuursadaan waa labadooda keliya marka dambe laba qoys bay tagtay waa taladii waa kow waa arrin marka hore tala yar oo ballaaratay waa laba sidoo kale inta waxaa jirta haddii ilaahay kuusama ogol yahay qaraabo marka hore yar haddana ballaaran saddexdaa bari guurkaada qaraabada waxaa weeye waa laba qof bay ku ekayd markii hore marka labadii qof ay isguursadeen laba heer buu mid walba wataa heer weyn baa mid walba ka dambe oo kana wuxuu leeyahay qaraabo iyo ehel iyo waalid kana wuxuu leeyahay qaraabo iyo ehel iyo waalid haddana way isu imaanayaan waa saddexe haddana waa aqal yaraa oo ballaadha haddana ubad baa imaada ilmaa imaada waa la tarmaya saddexdooda marka hore way yar yihiin wayna ballaadhaan saa darteed baa mahmaha soomaaliya waxay leedahay guurku marka hore wuu sira dhuuban yahay marka dambana wuusina ballaadhan mid iyada waa idinkaga digaya sadaba waa inagii moogtay xaafadeeni baynu nahay walaalaynu nahay ehel baynu nahay tol baana sukeeyaana dadku kalena saas kale inoogu xidhan yahay weligiin ummadda inta aad waalidka u tihiin waalid u ahaada waalidnimo u tixgeliya inta aad walaalaha tihiin walaalnimo u tixgeliya inta idinka waalidka idiin inaan waalidnimo u tixgeliya meeshan cilada taalla warku waa isoo gaadhay walaalkeen baa ii sheegay walaashii baa ii sheegtay adiga laakiin wax xoogaho badan kaamahay waa nagu oga baal gobodnimaha aad iyo aad kuugu bururtayo gobodnimada waxbaad qarsanaysaa waxaad qarsanaysa cilada socota adaa heerka u weyn xaaje aan sida maaragtay dabada riyaa loo faydin ma falante wax noo sheeg maxaa jira cilada ay ka socota
wiilkaaga miyaa ku yidhi imaada dhali ciladu waxay ka socotaa dhinaca gabadha iyo reerkooda haye waxay ka socotaa isagii wiilkayga anigu waan garanayaa qof ilmihiisa saa yaqaano wiilkayga wiil fiican oo baari ahaa laakiin hadda hadal kale ma yaqaano hodan baa saa tiri iyo hodan baa saa tiri gebigeeda wiilku waxa weliya haye muxuu codsanaya marka aniga waxaan isleeyahay quraan horta saara shufada geeya quraan ha saara quraanku haynoo dambeeyo markaan qofka ogaana cudurkiisa yani ama quraan saari karnaa ama dhiig ka qaadi karnaa ama cisbitaal geyn karnaa laakiin ruuxii cudurkiisa la xaqiijin quraan baan akhriyaynaa wadaadada laftooda waxay ku dhihin maxaan quraanka ka aqrinaa maxaan ula niyoonaaba oo su-aal baa imaan dhibaatada jirta iyo taabo qodobka iyo taabo waxay tahay wiilkan gabadhuu qabo maxaa lahay waa gabar horta qaalisan qaylo badan oo maxaa lahay aad oo anigana aan arki karinba iyo familkaba ayo kuma arki aniga inta ma isaari kartaba kuwa kalena iska badaawankooda saas ugu tagtay gabadha yartahay oo aan iyaduna aad noo jeclanaa marka ha iska qayliso hanti ha u ordo laakiin ani marnaba ma jeclin ugu dubo wararkaas ay ka tagaan marnaba xoolo doon iyo balaayo iyo mid ka dhacay adigu reerkoodana waa reer barakaysan gabadha maxaa rabtaa waxaana in la wareegtay rabtaa ma iyada lagu wareejiye rabtaa mise waxay rabtaa in adina kusoo geli cabdishukri lagu wareejiyo waayo inay cabdishukri lagu wareejiyo kadibna kala wareegtay rabtaa horta madaxa kala wareega dambe hala gaadhay inay iyada cabdishukri wax lagu wareejiye rabtaa somo oo xoolihii heerka waa cabdishukrina waxay ku qafishay dhiig iyo balaayo iyo maaqase iska dabamaryan iyo dhiig iyo wax ama ma fahmiye wiilkaaga wiil ma dhalin hadda warkiina waxaan ka fahmay laba qodob waa gabadhu inay rabta ninkeeda in mas-uul laga dhigo oo xoolaha heerku haystaan iyo isaga lagu wareejiyo qodobkaa waan fahmay waa qodobka labaad inay adiga ku erki karin oo qaraabo dhan rabin waad ii sheegtay iyada heerkooda yaa ka jooga guri hooyadeed baa joogta walaalkeed iyada hooyadeed walaalkeed ciddii oo dhan aa jirta ciddoodii o dhan adi idinkana lama rabo soo maa cid balo arki karo macaawiyaasha wiilkii war soo celiya xataa dhegeysta haddaba hadda cabdinaasirna ila lama joogo cabdishukurina ila lama joogo waa inagi waa tashanayna arrintan horta arrin sidan ku dhamaanay ma saad ii sheegtay waa hawl qodo dheer cabdinaasir waa imaanayo dhahay uu imaan doonaa arrintan waa arrin sal dheeraatay waa hawl qodo dheer si aynu u afjarno adiga wiilkaagii sooma marhayo imaba aada dhalin sababta uu ku leeyay imaada dhalinso xoolahan mas-uulba igamaada dhigan oo heerkaad iga saartay sooma xoolahan ku wareejinaya isaga yaan mas-uul uga dhigayna cabdinaasirna wuu la shaqayn wixiina wuu la ilaalin cabdinaasir wuu la shaqayn hantidana wuu la ilaalin adiga soo kuma dhihin imaba aada dhalinba waxa keenana soo maa hooyo waxba iguma aamin adiga laftaada wiilkaaga inaad fogeyso ood gabadh tabteed geliso adaa mas-uul ka ah tabta gabadha meesha inuu galo oo u dhaho hodan baa ay tiri wax walba kusoo dhaco adaa mas-uul ka ah waxaad mas-uul ka ahayd marka hore waxba kumaada dhiibin oo mas-uuliyadiisii wiilnimo waxba umaada dhiibin oo maada dhihin waxa aad qaban karto kaale qaba maada dhihin waa midda labaad dee isaga islaantiisii wacalaykum salaam abti haye soo dhow fiican tahay waa maqnaay meel baan gaaray iyo rabti abtaan fiican haye waa hooyadaa habartaa ii yeedho waxaa la yidhi xaaladdu ma fiicno waa ogaa waxbaa jiraan le sax balaan iswaraysaneen arrin qoys baan isugu nimo go-aan baan isla qaadanay sax go-aankaan isla qaadanay waxaa weeye ninka cabdishukri ahaa xitaa wuxuu gaadhay le heer uu hooyadii dhaho imamaada dhalin uu dhahay oo imamaada dhalin dhiig ha layga qaado iyo ugaa iyo ha lay xaqiijiyoba inta hiddasidihii la qaado arrintaa iyadayna waa arrin dhibaatadeeda midda kale ummadaha islaamku hadday ina maqlaan de waaba ceebba maaragtay aad iyo aad wax laga yaxyaxa wey ninkii maaragtay mas-uuliyaddiisii waxaa la dhahayaa labadii nin walaalahayd in hadda dhiig loo kala qaaday maraysa maamada lafteeda ceeb baa soo gaaraysa arrimahaas oo dhan inaan xallino yaan isugu imaana arrintan arrin dhow ma aha aniga qorshaan degay dadku markay sir kugula dhaqmaan sir baa lagula dhaqmaa dadku hadday caqli kugula dhaqmaan caqli baa lagula dhaqmaa dadku hadday khayaali kugula dhaqmaan khayaali baa lagula dhaqmaa dadku hadday mas-uuliyad kugula dhaqmaan mas-uuliyad baa lagula dhaqmaa dadku hadday ehelnimo kugula dhaqmaan ehelnimo baa lagula dhaqmaa durba markaan xogta helay go-aan baan gaaray mana qaba inaad igu diidaysaan haddii ilaahay idma hayo cabdishukri culeyskiisa u weyn ee hadda gadaal lagaga soo riixayo xoolaha hooyey waa layga ilaaliye aynu leenahay cabdinaasir baa lagu wareejiye buu taagay aniga haddaad i dhashay sababtaad wax iga ilaalisay ma garana maadaama arrinta halkaa marayso cabdishukri isaga ayaan ku wareejinayna mas-uuliyadda xoolaha markaan ku wareejinaa i dhegaysta horta markaan ku wareejinaa adigu waxaad ahaanaysaa ninka daba taagan ee waxan qaybtooda hoose control wax walba meesha yeelin adaa wax walbana sida loo maamulo adaa cabdishukri awli barnaamij ka joogo abti naasha ka dambaysan u kaadi adigu ma naag baan ka hadlaynaa mise cabdishukri
waxaan ka hadlaynaa waa walaalkaa waxaan ka hadlaynaa walaalkaa wey ma aha islaanta uu qabo yeena islaantu idin muuqan islaantu waxaa la yidhi waa beriyey shacbu laguma qani waxa ay rabtaa wuu caddaan hadda cabshiku waxaa laga yaaba haddaan dhahna gabadhaan kaa bedelo gabadh kaloo yar kugu daro inuusa idinka ogolan miyaydinka ogolin aniga warkaas warkayga ma anaaba dhaha gabaraha gabadhii hebel dhalaa waxaan dhaha kugu daro soo adiga maada muxuu ku yidhi ma rabo yiri hodan ku maqli waxaa hodan ahaan ba lagama maya haddii ma gala wiilkaan ma xum kalsooni buu ku haystaa islaantiisa laba yaynaa burburin marka kalsoonida qoyskiisa ku haysta inagu yaynaa cilad ku noqon waa kow cilad yaynaa ku noqon qolo qoyskii dhibaataysa yaynaa noqon ها مرة وحول ضوء قيس كهجاجه إنه وين صار عبد الناصر دقيسة بو وكذا بيا نم فيه الورجينا نم وعلى ما عندك ورجينا مش كحد يسجوجين أبا أنا ماي وحول ضوء قيس كهجاجه وين الصمين إنه تكوده وأقول بكرة وأقول كلامي ويل كائي هو يجي يسقون عن هذا وصحك وقت حي سحل كي مريخ كل حكي يعني صمين ninkii wuxuu leeyahay hooyo ma bidalin soo ma u dhihin waanu xaqiijinaynaa waa wiilkeeni waa walaalka adiga hadda hantida lagu xaqiijinaa ma hantida ku xaqiijinaynaa saddex qodob baan ku xaqiijinaynaa saddex qodob baan ku xaqiijinaynaa mar inaan la dhalay oo hooyadii dhashay hantidana uu isagu leeyahay mas-uul uu yahay baan gacanta u gelinaynaa xoolihii oo xanaynaa adaa mas-uul laga si uu balbaniidii waa koob dhegeysta waa koob qodobka koowaad waa qodobka labaad isaga qoyskiisa in daacad loo yahay oo inaanagu dhibaato ku wado si uu arko yaan ugu wareejinaynaa hantida وقلت صدحها هدو كقن عاي عنده فسدها إسكاقات ما عندنا ديجي إسكاقات إن ما مضى لا يكون حقيقة صدح لا قلب وأنا وحقيقة صدح لا مركي عداته إنه نروح شيء إن عداته وحصاب بحي إسلام تنقول لي يبلا تري ما شيء كبح أو يسوق يلك سوقه وأنا أركع حقيقة يعقل سعده ووجهه آخر إنه هو يدي يسوق أي نقطة نعيش وملح يصير هو ينمل تاسع أنا أقول قاعد أباي هي جديد قصف عمر أنا مرة أنا خصبة ما خصبة لكن وحنا شيء هي كلام معقول وحنا ربع ويلكين إنه هذا ويلكين كمان لو قام بقولي إنه دقينا هذا هيركن اسكت تصنع هنتظر إنه يبدأ أنت صار ساسا يقول الكلام وأنا تشي وطلع كنت تصنع عبد الله هنتظر سيا جلال خلاص عنه وحنا قلنا هو حقيقة ساسا قلنا هوش أنا بقولين هوش أنا عمد أنت كل ما ناس وما أكسر أي مخ خلاص أنا شو تلف عمر ساسا وأنا دونا ناكتم وأنا سمع هو يقدرنا وقول يتي وسوق قال ما هي بحياة ومن حولها وطمن تسوق أنا أصلا يا هبل سوق أبو جبل هاي من دانكو شيء قاي هذا كورن ينتريه نمكن ويلا قبل يشتري متكمل قاي ينتريه يشتري ما عرفت هدي قوي معي مرمرات تسيا يدبه توسن مريا سيدو لما عمل يشتري مامو كبري أرضي ومال وبوقي كان معلم كيس هذه قبض أنا نوع عضو تربية ينقل ويلكاول وسود داخل كرا لكن نوع عضو تربية سوهان تاكو حسابته برضو ويلكاول ويلكاول قبض لبته أنا معلم أمي قلت بديلها وهذا معلم كان كل شيء مرات تسيا يدبه توسن هذا قالوا وياه أنت بحسابة الموقت تدخل إني فاهمين بأريال الصدق يصدق أيوة ولا بقرا ولا يسكت ترى وصق يضح صق وهيل ضهنا وأغلق الداهيس قيبتي وعوية تدخل يعني صدق أو كلام توا وصق وهيل بكيا يضق أو قيبتي هدي لها إنه هي هاد الدولة كيسة يحط الداقة تدخل ما فاهمين ولي أريال فاهمين كم تسمع ما أنت قدر سوالي هذا نتحاور كل هذا يعرضنا إذا وإحنا وهاب يبر لما فاهمين أريال فاهمين بكم marka adaa tagay gabadha waad soo ogaanaysaa xaqiiqada jirta soo xaqiijinaysaa wax socdaad soo ogaanaysaa waa nagu soo wada celinaysaa ilmka ilaahay saasaan isku hay oo tagay bal wala soo hadlaya idan insha Allah ilaahay bal idan reerka u dajiyo insha Allah aamin hay dad الباب كأرتاس جبينه عارفين لو وفرنا الباب ترتيب كموري يا ساعات تتكير أطو دات بشسي أصير مراية أنا تجيبي هذا غسل بوك تجي سبحانه بس كور ساعتها ورك كلية نادين السعودية وابا أكتا ورك وحى صوت تصور ما يهم وحى أكتا ما يسوي دينه أنا وحنا كوي ما دينا ماشي عن غاية كنا قضوا عرضنا بديه ووضن كان محلها يرك على أنا حرية محيتها شدان كذا صارنا بلدي بوق يوحني يسوحن كيدينا أسبتان يوحب الرغد أو دان محيتها وحا علي كنت بيسلاي وحا أو لي سوا لا ورك أولي سلاي محل إننا بعدين حكى نبا
waxaa samaysa lee waay waxaa adig ka dambaysa waay qorsho hadda naagtii aadhays waa ku daraa hodan waaba kaaga leexanaysaa waddadii saasay kaaga leexanaysaa ku darsan bal naagta adiga wax kuu dhaqdo hodanay ma fiicna sidaan intaad reerkaaga dhaqatid meesha uwad bay noo joogeen maxaa dhahay reerka wadda isku dhahay ma kala tagaanaya hooya macaan meesha dhibka iska deysta shalay reerkaan aan dhaqdo amaad isii markaan ku dhahay adigisoo kaameel reerku maxaa aniga igu xiray reerka furitaankiisa maxaa aniga igu xiray gabaray waxa adiga aad as-aaskiisa ka dambaysid lee waay shalay anagoo nabad gurigaan ku joogo ku faraxsan aniga ninkayga edab u wada fadhino degan gabadheen waxbarasho noogu maqan tahay mar ay imaanayso intaan soo dhex gashay saas noo qastay ninkii igu dirtay qeelo maalin walba buuq aan iga dhammaanaynin ay gelisay waxaasoo dhan adigaa ka dambaysay markaas hadda waxaa iska kee dhigaysaa janno hooy shadaanka iska naar aniga reerkaaga ma duminin aniga quruxdiinaan ahay inaan wadanka maxaa la quruxdeena ma tihid quruxdeena ma tihid hooya iska daa dhibka dhegeyso waxaa la arki jiray dhegeyso waxaa la arki jiray waa ku ogahay waxaa la arki jiray teesi kale saddex guri dhisto oo ka dambaysa reerkaas inay nololkooda noolaadaan gurigooda ka burburin noloshooda xumaanin laakiin adi waa sadexdii ugu horeysa aan arko inay reerkayga burburiso inay igugu hanjabto inay ninka wiilkeedu ku darayso inay umaaraha iga horgelin warka inay gabadhii hooyadeed isku dirto iska horkeeto gabadheed iguma soo ficeli jirin baariyad bay ii ahayd hadda heer waxay maraysaa aniga ay googoosato adiga u sabab ah ma fahantay xumaatadaasoo dhan aabeedii hooyadeed waa adi maanta maxay tahay macadin imbitiriya kugu jabsan ku dhageysanaya ma warkayga dhageysatay gabadhaada adaa laga rabaa inaad tarbiyeysated hooyay gacalisoo gurigaaga ka dhaqo shaydaanka iska naartid yaa aniga kuu muuqanine reerkaaga iyo maxaa dhahay iyo sad wax xalin lahayd gabadha iyadaa reerkeeda iyo waxa dhan isku wadaa iyo labada qoys bay isku wadaa sidaad reeraha isugu wadi lahayd isugu wadi lahayd waa inaad falankeeda gashaa reerka maalin baa dhisa adna hoosaad ka duminaya miya marka aniga shalow iyo dhisnaa waa iga burburisay adoo kale waa aqaanaa adoo kale waa kasaa maxaa u socotaa meel oo maxaa ahaaye aad tu maxaa dhahay runta ku tustaa hadhow way soo xasuusan doontaa dhii doontaa sidadeeda hore boqorad bay ahayd والله أنا هذا بقر ودوين الله بقرة هي هذا بقر ودوين ما عندي استجي إن استجي سافر بدل أوريك هذا قطع أو قبل أنا أتربيته أنا قبل أكون مديره أيضا والنمي إيش على ما هي أذوق أنا واحد أنا ذي كوضه أو ويلك حقي حقه أميتت أنا كون مديره خير كان إنه بس شعلها يمدوني نتاتاني أنت تدرك دجيست وهي قاعدة زي حل راقي ما أنتوا الصامس كيننا ساعة عفمات مترا يعني يا أسكت جدوسا وقفك أسكت جدوس مك فاهمنا شلي واحد يقول بوتين نسين هذه ولا شيء يقول هنجي بسين يقول بوتين نسين أنا ويلكين كتر سنسين ناك هذا الوقف قروه وسمعنا لكن أنا الوقف قروه أفكر شو ما جرت أريد قروي جوا برس واحد والبنا هذه كم مسؤولة ما أنت إنه قروان وحول الدقواي oo la burburaayo waa adiga darta waxa adiga mas'uul ka ahayn kama dhicin meeshan ma fahantay xumaan oo dhan ada u koob ah waxa kale hadda iga rabtaa aniga waa la furaayay ninkaasna wuu furaa ma isii qabi karabo inta adiga ku xiran yahay imaba qabaayo inta adiga saan nolosheena ugu jirtid nolosheena inta ku jirtid la ima qabaayo ani oo soo iska kay furaaya because adiga nolol ay igula jirtid marabi maxaan ka faa'iidayaa burburis un maahane hadda xaawo dhimo inta yartaa kalena haddaa xataa isdhow ninkaaga degso adaa halaha kale hawada ku baaranayo maxaa marka inta adiga nolosheeda ku jirto waa kugu soo celina marka gurigaan ma dhisnaanayo guriga inuu burburana adaa ka mas-uul ah bilaasha awlaada hadda waa kaa tegaya haddaad tegtidna oran guri aa burburiso waa guri markaad burburiso halasaa leedahay waa kaa tegaya inuu gurigu sii dhamaado maro maxaa kale war miyaa waxaas hadda maxaa yeelay wato aniga hadda idinka jabkiini iyo rafaadkiini guriga adaa ka mas-uul ah wax walba maalintaad gurigayga lagu hal soo gashay baa ugu dambeysay nasiiriin iyo maxaa la nabadgeliyo naqayradaada kaa duminaysa guri aan kaa duminahaye maxaa la maanay gacanayso anigu ana haysaroon waa adig oo ana haysalfan maamoy nolosheena ka bax qafiyay amaan iska keensiin wuu laakiin aaway ilaa maanta oo isla gudbiyo hadalkayga qaadna weydii waa kaa tagayaa halkaaga marka inaan qaato ani ayaga ku dhismaa guriga aniga waa dumada xig uu yahay aniga waa kaa taga kuma soo maraayo baa dhisnaa gurigaas waa yahay anina dhisnaa guriga marka hore buu dhisnaa ma ilaa adigana soo dhax gashay baahanay guriga hadda meeqaan noo joogtaa waa sanadii xoogaa wuxuu degan yahana male
maskaxdii hal sano iyo xoogaa dulqaadkaygiiba cuntay ana bax intaa socotidna dhulkaa kula dilaaca bismillaahi raxmaani raxiim abaar ma gabadha ama nebralaadi barkeed marka adiga oo naga tagtid la barakada soo galay ilaahay jikool hooyo waxaa ilaahay idinkaga rajeynaa idinkoo nabad ah iyo inuu oolaa saalaxa ilaahay ana ilaahay waxaan ka rajeynaa ilaahayba mar dambe inuu isku kaa soo celin argaagaba dambe i tusin bal waayahay hooyo anoo idiin duceynaya qulba allah idin barakeeyo calooshkii baad allah ka dhigi qalbiga kasoo daada tu adiga imaad ducaba u maleynayo waayahay balaad waa taga haddii ku tiraa cabaar inay kula sii murto waa qaftaas adigana habaartan wax kalaa ku dhaha ma aqaan xabada inay intaa sii socotid lahaa intaa isku kuftid hadhow adiga ha qabsan waa guruut guriga ayada ka dambaysa waxay ku leedahay waa ka tagayaa waa kaa yeelaya markay burburisanaaya waa kaa tagaya marka waxay soo doonaysa ya